gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay guddiga joogtana ay huriyeen guddoonka isku dhan meesha ay joogeen keen oo ay ku dhaareen amniga waxaase xusid mudan ujeeddada ma aha jawaari meesha laga qaado ujeeddada waxaa way anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad in la kala diro golaha shacbiga oo markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin intiisana gudan karin arrinta aan u sheegay waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka soo doortay codkii shacabku ku hadlayaa haybadda shacbiga lagu cayaaraya qof alla qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo xildhibaanaanu nahay ra'yi baan leenahay waa kuwa doorta cod baan ku kala baxnaa waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xunahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejista oo dejinta ee soomaaliya oo ka madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshimadan ayada ay daba joogto oo haddii alkuurahay ujeeddadan ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrintantani ujeeddada ma aha jawaari meesha laga leexiyay waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum jawaari waa qof berituu ka tegi karaa anigana ma ihi qof kursi isku dejinayo qof kursiga marka awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi lagamana soo barbaarin laakiin waxaan walaalayaalow kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum ixsaanakum xildhibaanadiina saa u dhantihiin burburka ha laga ilaasho golahan shacbiga idin dhiibtay ammaanuu idinku yahay kitaab baad usoo marteen ujeeddada la rabo in baarlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo xildhibaanow baarlamaankaaga badbaadso jawaari wax ugu fadhiya male waa shaksi qof weeyaan xildhibaan adoo khaalis ah weeyaan laakiin hal xaliseen iyo heerka aad soo gaarsiiseen waan ku celcelinayaa xildhibaanow badbaadso baarlamaanka mushkilad ma aha haddaad mooshin keentay xaq baa u leedahay laakiin ujeeddada ka dambaysa oo laanta fulinta ay u dan leedahay ha la iska ilaasho codkaaga dhiibo xurow ahaaw si daahfurnax loo qabto hallo arrinta kale hadda la iisoo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay albaabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keeno dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan markaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaa mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa ayada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacanta iyada kuma jiro waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh ama ciddii kale kala dambaysa la wadaagto asagaa yeelanaya ilaa iyo inta haddaan mooshinka ku noqdo mooshinkaas wuxuu noqday 19 waxaa ka dhiman xaal saa daraaddeed waa mooshin jabay hase yeeshee isagoo saas sharci darro ah waxaan ogolahay in xildhibaanada oo mooshinka soo jeediyey halkii xildhibaan ka dhibnaa inay ku soo darsadaan si haybad leh daahfuran oo degenaansho leh in loo soo dhigo golaha la hordhigo sanduuqa loo dhigo hadday kalsoonida kala noqonayaan haddii kalaba meesha ay go-aankooda ku gaaraan si xildhibaannimo ku jirto xaq ku jiro oo dhaafta ay ku mareen ha la yimaado laakiin meermeer kale iyo marimo kale oo markaa guracan loo soo marayo golaha shacbiga oo intaasana aan kusoo dadaalnay in shacbigaas uu yeesho dowladnimadiisa aan dhisno ma yeelayno in la burburiyo dad ku danaysanayo iyo dan kalena annaga ka yeelimayno haddii xildhibaano aad tihiin waa idinku celinayaa badbaadiya baarlamaankiina shaksiga iska dhaafa baarlamaankaas ha la badbaadiyo shacbiga daraaddiis ha loo badbaadiyo dowladnimada daraaddeed ha loo badbaadiyo ha laga daayo danaysiga iyada ilaa iyo inta
golaha shacbiga ama aniga igu soo celinayo ama mid kale loo keenayo oo aan xilka u dhiibaayo anaa ka mas-uul sida uu qabo xeer hoosaadka qodobkiisa 10aad faqradiisa 8aad ciidanka amniga sugidda goobta xildhibaanada iyo dadka meesha jooga oo dhan waxaa xilkeeda iska leh habdhowrayaasha ayaa ku cad habdhowrayaasha markay soo dhaaftaan anaa ka mas-uula waxaa keliya iga reeban qaanuuniyan iyo sharciyan iyo xeer hoosaad iyo dastuur ahaan arrinta keliya iga reeban ilaa matiyaalota imaanaya waxay tahay anigu ma shir guddoomin karo marka mooshinkayga laga hadlayo ama mooshinkayga oo hawshiisa lagu jiro ama loo codaynaayo waa iga reeban tahay sharciyan inaan shir guddoomiyo markaa waxaa shir guddoominaya guddoomiyaasha kale ama ciddii xildhibaanadu markaas ay u garato ayaa sharcigu sidaas u yahay ilaa iyo intaas mas-uuliyadda anaa kale oo aan ka ahayn shir guddoominta mooshinka aan ka ahayn anigaa ka mas-uul ah oo habdhowrayaasha ka mas-uul ah guddoominka xigeenada ka mas-uul ah ilaa aakhiri wax kale oo meesha ku jira ma jira haddii la doonayo arrintan inay nabad ku dhammaato si dastuuri ay u dhammaato si sharciga waafaqsan ay u dhammaato waa in goob oo aan meesha xukuumadda haysan oo magaciisa dhexdhexaad ah lasoo dhigo mooshinka asaga ah si daahfuran loogu codeeyo ayadoo ay goobjoog yihiin dhammaan xildhibaanada culamaa uldiinka dhalinyarada haweenka intii markii doorashada dhaceysay iyo hataa kuwan maxaa la yidhahda international community-ga maxaa la beesha caalamka ay ka joogaan kulligood oo ay fiirinayaan xaq inuu u dhacayo oo meel aan ahayn meeshan hadda ay xukuumadda loo wareegto dhexdhexaad ah in la geeyo laga codeeyo loo codeeyo ilaa aakhirihi taasaan ogonahay ha soo dhammaystirtaan oo ka dhiman xataa anaa ka baryaaya guddiga joogtada dhammaan xildhibaanada ma aha qaanuuni laakiin waxaan diidaa in xasarad siyaasadeed la abuuro daraaddeed mooshinkii ha loo ogolaado anaa soo wada barbaryaaya dhammaan xildhibaanada waxaan ka codsanayaa inkastoo hawsha si xikmad leh wadaninimo leh islaamnimo leh inay maaragta arrintan u dhameeyaan ayaan ka codsanaya